السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan u bishaareynayaa macaamiisha Daaru Raxma Dr. Jaamac Cabdullaahi Ilaala Jecel inaan joogo Boosaaso maantay oo Ilaahay nabad keenay dadkii awlada isugayay inay joogo waan horta taa ogeysiis iyo calaamad ku siinaya insha Allah wiilashii gabdhihii aan balansanayn mid labaad waxaan soo kordhiyay daawooyin fara badan oo ay ka mid tahay hadda xanuunka la kansarka oo Ilaahay ugu guuleeyay maadaama su'aalo badan dadkii soo weydiiyay oo ay leeyeen bal xanuunada daawaysiga warbixin naga sii waxaan rabaa halka inaan ugu soo gudbiyo waxyaalaha Ilaahay ugu guuleeyay waxa Ilaahay ugu guuleeyay sokorta waxa Ilaahay ugu guuleeyay xanuunka la oran jiray gaaska waxa Ilaahay ugu guuleeyay xanuunka la oran jiray galaha ama infectionka waxa Ilaahay ugu guuleeyay xanuunka la yiraahdo gaaska haddaan tafaasiil marka idinka siiyo Soomaalida example xanuunada aadka ugu fara badan oo hadda isbedela oo kansarka isku bedel waxa kamida baabasiirka iyo xanuunka gaaska la yiraahdo gaasku waa lab iyo dhadig markuu magacu galaa laab xanuunshada hoosteeda olol buu leeyahay markuu qofka ku raagaro kurtum buu samaystaa biyaha iyo caanaha marka cabaysid waxbay dajinayaan oo hoos u ruuxiyaan baas leedahay mar bacteria sima diburu leeyahay marka gaaladu ay inta qalabka microscope la saaro ay arkaan nabaradii wuxuu leeyahay qofkan waa kansar waxaan u sheegayaa inuusan kansar ahayn la badbaadin karo qofkaas aan la qalin aan kula talinayaa horta Soomaalida xanuunka la baabasiirka kale feex buu sameeyaa waa saddex nooc mar wuxuu galaa dabada wareegeeda banaanka inuu hor burburan baa dawada sameeysaa marna wuxuu galaa walamadka afkiisa hoos oo qanjiro burburan buu leeyahay fartu gaadho oo qofka saxaradu dhinac uga timaada marna wuxuu galaa mindhicirka oo dawadana way cuntaa qofka saxaradu kuma timaado marka feexda oo qalabka microscope inta lagu fujiyo la arko wuxuu leeyahay waa kansarna ma waa baabasiir daawooyin waxaan siinaynaa dawada la marinayo oo soo nuugaya oo qashinka ka soo saaraya waana fadli Ilaahay example xanuunka la galaha raga saddex nooc ugu dhacay gala nuug iyo gala bar iyo gala qanjir baa leeyahay bar labada xaniyood baa ku dheeraanaysa bulq dheer bay noqonayaan mar way kala dheeraanayaan mar xaniyaha iyo xubinta taranku yaraanaysa shahwada waxay noqotaa wax jilicsan oo biyo hadiiba soo baxay marna waxba ka imaan mayaan xaniyaha hadaa saa u taagtid waxaad moodaysaa silsilada sideeda kale ayay u laalaamayaan wax burburan ay noqonayaan mar hadee waa xaniyaha iyo wax dhan waa khalaas bay noqonayaan waa dhamaanayaan ninkaas ay ugu fiican yani fariistay oo waxba soo waayay laana wuxuu ogaanay wixii Ilaahay ka sii daawadayda marka waxa bishaaro Ilaahay fadligiisa wax badan baa Ilaahay ugu guuleeyay waxaad ka helisaan daawooyinkeeda aad meel badan oo kala duwan adduunka ah sida wadanka la yiraahdo Koonfur Afrika sida wadanka la yiraahdo Uganda sida Hargeysa sida la yiraahdo Muqdisho sida la yiraahdo Galkaayo sida la yiraahdo Garowe meelahaas oo dhan way Itala waxaan ka maamulayaa telefoonka waa ogtiin adduunka waa hal magaalo maantay waana Ilaahay fadligiisa wada shaqeyn wanaagsan reer Daaru Raxma waxaan joogaa Boosaaso ku soo dhawaada gacmo furan Daaru Raxma assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sore oo nasaxay hore waxa uu sheegay xanuuno badan oo ay ka mid yihiin madina ragga daawisiin arintaas xagga maraysa ma sha Allah horta waxa keenta dareenkaaga oo inta kacay noqday dhalinyarada waxa keena siigada oo kale baalkan ilaa waxa soo gashay 6 iyo 30 xidid baa soo gashay marka ninka dhalinyarada baasha siigada uu sameeyo baalkii wuu yaraanaya wuu qaloocanaya horta dhalinyarada waxaan kula talinayaa inaysan baashaas ka tanasulaan aysan siigaysan si mustaqbalkooda uu u dhumin inay toobad keenaan kabacdina iska ilaaliyaan qofkii hadda hore ugu dhacay waa inuu si degdeg ah soo booqdaa bartayda YouTube-ka Dr. Jaamac Ilaala Jecel waa inuu soo booqdaa waa inuu si degdeg ah soo waca insha Allah tore ma jiraan dad intay asmaa daawadaanin dibadda oo kala jooga wadamada daawada online oo soo dalbado meelaha ugu sii ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay waxa macaamiisheedu joogtaa Canada America waxay joogtaa Ingiriiska waxay joogtaa Australia waa haddana waa ku tusi karaa inaad codkooda iyo nambaradooda xataa waa ku siin karaa iyagaana igu amray inay qof kasta oo Soomaaliya oo shaki ka muujiyo daawadaada nambarada si anaga la soo xiriirina anaguna na soo wacin beeleen dadkii macaamiisha oo 9 bilood qaar baa isticmaalay 6 bilood qaar baa isticmaalay horta Soomaalida waxa aad ugu xumahay dadka ila jooga nin walba wuxuu hal bil inuu ku soo aftiro daawada hal bilna waxba ma kordhinayso waxa la rabaa wax kuuray loo isticmaalo kuuradina waa 3 bilood aan kula talinayaa dadka xama badan baa jira oo nin baa inta bil ka qaato wuxuu leeyahay waxba tagmayso hadda maxaa wixii ku jiray baa kicisayba maxay wax tadhaa hal bil waxba faa'iido ma leh lacagta iska khasaarin waxa la long time qofku inuu maartay ila wixii kiimika baa ma ogto walaal waxa la rabaa qofkii inuu dhacaamadii la curiyo oo la dhaqo uurkii xanuun dhinac caloosha xakunta marka daawadeen waxay sameynaysaa caloosha baa dhaqmaysa awoodii raganimadii baa soo noqonaysa
ninkii odagaha Soomaaliya ha noolaato marka waxaas walba Ilaahay u guuleeyay dad badan oo odayaal iyo dhalinyarada isugu jiro oo dhinaca aad uga cabanaya waxa leedahay haddii aad daawada qaadato laga sheegay garo islaax soo jeen baa soo saaray kalsooni buuxda waa qabaa hadda 74 qof baa diiwaan ka xagga taranka hadda inta ay fadhiidin waa ku tusaya qaybaha kamida kuwa Australia kuwa Malaysia inta population-kayga oo dhan waa ku soo bandhigaya iyagana yiri number-kayga waa siin ka dhaay ku dhaga Australia jooga qof kasta oo Soomaaliya ku weydiiya waan ku mahadsanyahay ayaguna intii aad soo shaqeynaysaa kiiskii kugu adkaa annaga kugu adkaa daawaysa wallahi kiisas badan baa igu adkaa waxa igu adkaa ninkii tan la ii keenay annagoo dhakhtar oo shaqeynaya iyo 3 bilood anigu bahalkayga ma arag waa in 3 bilood oo dollar baa lagu daaweyn karaa oo aniga ayaa taagay iyo muqoriyo halka ka soonaysa aniga boqolaal iga siinaysa waa tan hadda loo wada raaci jirnay ilo anigu dabiib maahay mujarrib baan ay mogti aniga cilmigan wuxuu ku yimid ka dhacay labada dhexdood daawadana waa daawada iga keentay nimaan nasabkiisa aqoon inaan gabar baan ku siinayaa aan dhalay ibar dhirta 64 geed baan ka qoray oo laba iyo dhadig loo dhir magaalada baad dilay marka kiisaskaasna Ilaahay way ugu guuleeyay marxaatiga YouTube ka kaleeysan Dr. Chama Ilaala Jecel olnaagood yaab Ingiriis rag waa wada qabaa waxaan kula talinayaa nimanka Soomaalida gabdhaha horta Soomaalida waa u duceynayaan waana amaanayaa waa dad samir miran لأنه ناقة جنبية أداً همينكي شغالة قبل وريه صباح القراء حسين ميسو لكن قبل الصومالي ذا ويدل غاتان فنتي قالوا كو أمانيين لكن إنك استوى وحيسو قرية هذا واقع هذا كتوسيا وقبلي وحيسو ويدي إن كان بيها سيدني هلك دقيقة محل حلويسا هم بريك بنصو صاري ومحورات بنقول ذي بالله وهذا وين ذا قنشر كبار سفوبية أودي بسون نقوليسا كودينا وابوغانيسا أنت اللوج تايم وقت ده بس لقادنيسا marka waa u bishaareynaya gabdhahana dulqaadkoodii waa aad baan ugu salaamayaa doctor marka laga yaabo rag ma aragtaa dumarkay ku yimaadaan fiiraado ragii baa waxa weeye awoodii gabay bal daawooyinkii aan siinay amna sooda iyaga gabdhaha baa iga iibsada daawada in badan baa ila soo xiriida indama baa u iibsada daawada waxa xagaageed wax la qariya gunta ka weyn bay oran jireen Soomaalidu moogta daawadana waa wax Ilaahayna siiyay weey oo si adduunka qaarada isaga gudbisa oo Ingiriiska oo kale hadda meesha Australia oo kale waa toos bay u xreeyeen Daaru Raxma in badan oo ka bida Ilaahna waa ku guuleeyay anigana way la shaqeeyaan runtii oo waxba iga iibsadaan waxaan soo saaray iga iibsadaan dadka gudaha jooga waxa iga fiican dadka banaanka jooga oo wixii Ilaahayna siiyay ayaguna soo bandhigaya kuwa hadda gudaha jooga way qarsanayaanba example hadda boosaas oo kale waxa ay qaabilsan halka aan fadhino ninkan batri ninkan baa ay qaabilsan wuxuu wataa 73 84 ma garad boosaas ninkaas ay qaabilsan gaalkaayo numberka la yiraahdo 73 49 81 waxa kale laga helayaa Garowe 71 konton 94 waxa laga helayaa Hargeysa 063 24 10 583 583 baa laga helayaa xamar waa laga helayaa daawadeeda hadda caawa taala waxa kale oo taala Koonfur Afrika waxa ka taala Uganda wada shaqeyn wanaagsan halkan uga dirayaa dadka luqadda Soomaaliga ku hadla meel kasta adduunka joogeen in aanu hayo daawooyin tayo leh oo meesha Japan iyo Turkey ay aadi lahaayeen meel fog aniga dalka gudihiisa aan ka soo saaro intay rabaan borderka rabaan aan siin karo waliba qiimo jaban aan ku siinayo ayaan ugu bishaareynaya dadka daawooyinka iibsada oo meelaha fafku u keenaya waxaan dadkoodana wax yeelayn oo tayo leh waan u hayaa oo qiimo jaban u iibsana baan ku soo dhaweynayaa inay aniga jiblahan iga iibsadaan intay wadan fafog oo diyaarada soo saari lahayn aniga Ilaahay u guuleeyay oo intay rabaan kuntarka rabaan u diyaarinaya taasna waa fariin aan firayo dadka daawooyinka ku hawlan inaan u soo saari Ilaahay u guuleeyay inay iga iibsadaan insha Allah aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh